السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل معنا وناكسن صاحب يال سو دواده waxaan halka idinku soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno xaaladihii u dambeeyay ee dalka Itoobiya. Hadii aynu eegno qodobada wararkeena ugu door karno waxa kamid ah ciidamada jabhadda Faano ee deegaanka Amxaarada ayaa waxay gubeen mid kamid ah suuqyada ugu waaweyn magaalada Dhisay waxaana halkaas ka jira khasaaro lixaad leh. Dhinaca kale ciidamada deegaanka Oromiya ayaa waxa ay sheegayaan in ay qaati ka taagan yihiin la dagaalanka jabhadda OLA. dhinaca kale shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka City ayaa hub qaatay isla markaana waxa ay difaac adag halkaas kaga jiraan iyaga oo ka hortagaya weerarada ay ku soo qaadayaan canfarta. Dowladda uu hogaamiyo Mustafa Cagjar ayaa indhaha ka laabatay in ay shacabkaasi u gurmato isla markaana ay qayb lixaad ka qaataan colaadda halkaas ka taagan. dhinaca kale waxaan soo qaadan doonaa waxgee ku dambeeyay wada hadalkii u bilowday ururka TPLF iyo Abiy Ahmed waxaana la soo sheegayaa in wada hadalladaasi shuruudo adag ay ku xireen labada dhinacba. qodobadaasi iyo warar kale oo xiiso leh oo ku saabsan guud ahaan dalka Itoobiya ayaan halkan ku soo qaadan doonaa ee saaxiibayaal soo dhawaada. waxaana barnaamijka qaybiga la saaxiibka Maxamed ugu horeyn soo dhawow bal waxaan ugu warantaa ugu horeyn xaaladda guud ee dalka Itoobiya. aad iyo aad umahadsan tahay tan iyo intii la soo sheegay inay socdaan wada hadallo u dhaxeeya xogaga TPLF iyo sidoo kale dowladda federaalka Ethiopia kuwaasi oo isbuucyada ugu dambeeyay tuhun weyn laga qabay inay jiraan wada hadallo hoose ayaa jabhadda ururka Fano ee dowladda deegaanka Axmaarada waxa ay bilowday weeraradii ay ku haysay dowladda federaalka Ethiopia ay ku qaadaysay maalmihii ugu dambeysayba waxaana maanta la sheegayaa in ka badan laba suuq oo waaweyn oo ku yaala magaalada Dhisay inay weeraro ay ka geysteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Fano waxaana ay gubeen suuqyada waaweyn ee magaaladaasi. khasaaraha ayaana haatan waxa la sheegayaa in uu sii badanayo. dhanka kalena dowladda federaalka Ethiopia waxay wada hadallo ay dardar gelinayso taasi oo ay rabto inay ku soo afjarto dagaalka muddada dheer qaatay u dhaxeeya ayaga iyo ururka TPLF. wada hadaladani meesha ay ka dhacayaan lama sheegin laakiin waxa la sheegay in wada hadalladu ay socdaan isla markaana haatan laga gaarayo guulo waaweyn. isbuucyadii ugu dambeysay afayeenka ururka TPLF oo la hadlay warbaahin si gaar ah loo leeyahay ayaa sheegay in ay ayagu ka go'an tahay Ethiopia mid isla markaana aysan rabin inay ka go'aan Ethiopia. waxaa jirta buu yiri wadamo ayagu rabo in ay noola macaamilaan inaan nahay wadan gooni ama wadan madax banaan laakiin arintaasi gabi ahaanba waan iska diidnay oo anagu nooma cuntanto ayuu yidhi in aan Ethiopia anagu u horseedno burburkeeda. arintaasi ayaadna moodaa in ay soo dhaweynayso inay wada hadlaan ayaga iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka Ethiopia. wada hadaladani waxaa laga shaki qabaa inay ka dhacayaan dalka Nigeria laakiin labada dhinacba midna ma uusan sheegin goobta wada hadaladu ay ka dhacayaan iyo cidda ururka TPLF uga mathalayso wada hadalada marka laga reebo in ay warbaahin si gaar ah loo leeyahay ay sheegtay in wada hadaladani ay galeen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo sidoo kale erge ka socoto ururka TPLF laakiin warbaahintaasi ma aysan sheegin goobta rasmiga ah ay ka dhacayaan wada hadaladani. waxaana aan ku soo tabin doonaa meesha ay ka dhacayaan wararkeena. waa tahay ururka Fano ee u dhaqaaqada xoreynta ama deegaanka Amxaarada waxaan ognahay in ururkaasi uu dhibaato badan uu ku hayo deegaankaasi isla markaana ay tabar u laadahay dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed. waxaa la soo sheegaa in suuqyada mid kamid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Dhisay ay gubeen isla markaana aan la gelinayn sababta ay u gubeen. maxay tahay bay kula tahay sababta ay u gubayaan suuqa magaalada Dhisay? hore waxaan ogeyn in shacab badan oo muslimiin ah ay magaaladaas ku xasuuqeen isla markaana aysan dowladdu ilaa hadda wax tallaabo rasmi aysan ka qaadin. horta doctayba ururkani marnaba ma suurtagelayso in dowladda federaalka Ethiopia ay leeshiisa TPLF Faanana ay heshiis ay noqdaan. arintaasi waxay moodaa in dowladda federaalka Ethiopia ay ku adkaan doonto oo hadii dowladdu ay heshiis la qaato ururka TPLF Faana duurka ay galayaan isla markaana waxay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda meesha ay ku arkaan. marka ururkani waa urur ayagu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda deegaanka Axmaarada iyo sidoo kale dhul ballaarsi weyn oo Axmaaradu maalmihii ugu dambeysay ay ku soo caanbaxday. arintaasi oo ah in gobol dhan oo Tigreega ay leeyihiin oo in ka badan 30 sano iyo intii Ethiopia ay jirtay ayagu ay ka arriminayeen haatan uu gacanta deegaanka Axmaarada uu soo galay ciidamadan Faanana ayna marnaba ka go'nayn
in gobolkaasi uu ku laabto ciidamada ama gacanta ururka TPLF. arintaasi ayaa moodaa inay sii adkeyn karto xaaladda deegaanka Axmaarada ka jirto. gobolkan haatan uu dagaalamay magaalada Dizay ku taallay Wolo waa gobol inta badan ay degan yihiin muslimiinta asal ahaan kasoo jeedo deegaanka Oromada ama ugu badanba. waxaan ogeyn in ururkani ay dhaqdhaqaaq halka ka wadeen oo ay gubeen in ka badan boqolaal guri ay dhaawaceen boqolaal qof sidoo kale tan ay dileen 21 qof ay ku dileen gudaha magaalada Goor. waxay gubeen in ka badan 10 madaraso iyo 6 masaajid. marka ururkan waxaad moodaa dhaqdhaqaaqiisa in markasta oo dhibaato uu dad u geysanayo in uu muslimiinta ku horeysiinayo halkaasi uu dhibaato muslimiinta u geysanayo. suuqyadan la gubay intooda badan dad muslimiina ayaa gacanta ayaa dhaqaale badan ku lahaa. waxaadna moodaa carada waxaa la dhahay yaxaas loo qabo biya loo tantooma. marka caradii ay u qabaan ururka TPLF ayaad moodaa inay markasta muslimiinta ku dhaqan deegaanka ama gobolka Wolo ay dhibaataynayaan oo leynayaan oo ay barakicinayaan. marka ururkan dowladda federaalka Ethiopia waxa ay amartay ciidamadeeda sida gaarka u tababaran haday noqoto militariga iyo dhamaanba kuwii dagaalada kula jira ururka TPLF waxaa lagu amray inay hubka dhigis ku sameeyaan jabhadan gumaadaysa ama xasuuqaysa dadka ku dhaqan gobolka Wolo gaar ahaan deegaanka Axmaarada. marka arintaasi ayaad moodaa in xaaladda sii adkeynayso oo haatan ururkan uu bilaabayba in ay iyaguna ciidamo tababartaan oo dowladda ay dagaalo ku qaadaan oo gubaan goobaha ganacsiga ee dhaqaalaha dowladdu ka soo galayay. arintaasina waxaad moodaa in ay xaaladda sii adkeynayso iyadoo dowladdu ay wada hadallo kula jirto ciidamada ururka TPLF. waa tahay dhinaca kale ciidamada deegaanka Oromia waxa ay sheegeen in ay qaati ka taagan yihiin la dagaalanka jabhadda OLA oo ognahay inay tahay jabhadda ugu muruqa weyn ee dalka Ethiopia ee jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa. dowladda Ethiopia in badan jabhadan waa ay ka meereysatay sida ay TPLF iyo jabhada kale la mid ah ula dagaalantana oo lama aysan dagaalamin. waxaana moodaa in jabhadan ay naasnuujin ka haysato madaxda ugu sareysa dalka Ethiopia. maxay tahay cabashada xilligan ay ka muujinayaan ama waxa ku soo aaday bay kula tahay ku soo aadanaya kula tahay ciidamada deegaanka Oromia. horta doctor ciidamada tira badan oo ka socda dowladda federaalka Ethiopia ayaa la geeyay deegaanka Oromada halkaasi oo dagaalo kala duwan ay kula jiraan ayaga iyo ciidamo ka socdo deegaanka Soomaalida iyo Sidama iyo dowlad deegaanada kala duwan dalka Ethiopia ayaa halkaasi ku sugan ayagoo caawinaya ama garab siinaya ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ku sugan deegaankaasi. maalmihii ugu dambeysay waxa soo baxay warar sheegaya in ciidamadii halkaasi la geeyay ay ku adkaatay xaaladii oo ururkii ula soo baxay awood aad u weyn oo kaba awood badanba ciidamadii 80,000 ah ee lagu daabulayay deegaanka Oromada. dowladdu maalmihii ugu dambeysay halkaasi waxay ka geysanaysay duqeymo iyo sidoo kale weerar joogto ah oo ay ku qaadayso ururka OLA xoreynta deegaanka Oromada. arintaasina waxaad moodaa haatan inay soo adkaatay oo dowladii ay u maaralaadahay. arintaasi waxa ay sababtay in dowladdu ay garwaaqsato in haddii ururka TPLF la heshiiyo aad moodaa dagaaladu inay soo yaraanayaan. waxaad moodaa maalmihii ugu dambeysay tan iyo intii dagaalkii lagu jabiyay ururka TPLF awoodda ururka oo kor ayay usoo kacday oo waxaad ogeyn inay deegaamo badan oo Oromada ka tirsan ay isku ballaariyeen isla markaana ay ka saareen ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaa. ayadoo taa jirto haddii lala heshiiyo ururka TPLF oo dagaalkaasi la soo afjiro ayaga iyo ka dhaxeeya Tigreega waxaad moodaa inay ururadan kale tan arintoodu ay soo yaraanayso. waxaan ogeyn inay jirtay ururkii onag la baxay ama OLF la baxay ee ka dagaalamaya gobolka Oromada inuu aad u baaxad badnaa oo haatan ururadan jiro oo dhan u ka awood badnaa kana qarni sareeyay markii la fiiriyo taariikhda ururada dalka Ethiopia. meeshii uu ku dambeeyay waan ogeyn haatan waxaad moodaa يعني ciidamadan haatan Oromada isku ballaarinay halkaas ururkan xoreynta Oromia oo la baxay waxay ka soo fircameen bal dhigi kara ama awood siinayay haday noqoto tababar iyo haday noqoto dhinac kastaba ururka TPLF. hadiina ururka TPLF haatan isa soo dhiibaan oo Ethiopia ay mid noqoto ururkani gabi ahaanba uu saxada ka baxo kan kalena dawladdu way ka adkaanaysaa hadaysan jirin in wararkan sheegaya inay jiraan madax
dalka Ethiopia ugu sareysa ayaa naas nuujinaysa oo yacni ururkan rabto inuu noqdo faan oo kaleeto urur markii la rabo cid la rabo lagu gumaado markii kalena dawladdu ay meelaha cadceysata hadday noqonayso arrintaasi waa baab gooniya laakiin hadday noqoto urur isku magacaabay oo iskii u dagaalamayo oo xornimo raadinayo oo rabo Oromo inay gees u goodo hadduu arrintaasi ay tahay waxaad moodaa inay iyadana ay sii adkaan karayso waxaa la sheegayaa in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka City ay bilaabeen in ay hubka qaataan isla markaana ay difaac adag kala hortagaan ciidamada canfarta oo duulaano qaaqaawan ku soo qaadaya shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi degan waxaan ognahay in dawladda ka jirta deegaanka Soomaalida ay indhaha ka laabatay isla markaana in badan la sheegayo ama lagu dhaliilayo in aysan waxba ka qabanin shacabkaasi ama dagaalada halkaasi ka socda maxaa la gudboon shacabkaasi dawladdaase maxaa looga baahan yahay in ay shacabkaasi ku garab istaagto miyaysan ahayn in mas'uuliyadda ay qaado oo iyadu wixii ku soo xadgudba deegaanka Soomaalida ay ka hortagto waxaan ognahayba tan iyo intii dagaaladan laga soo sheegay galbeedka gobolka City waa kan dagaalkan dambe soo cusboonaaday dawladdu maana arag mas'uul dawladda ka tirsan oo intuu warbaahin soo hor istaagay dadka shacabka Soomaaliyeed oo ga waramayo xaaladda rasmiga halkaas ka jirto markii laga reebo in dadka shacabka ay sheegayaan in maalin walba sidii aari waraabo galay 10 iyo 20 loo cunayo markii laga reebo ma jirto mas'uul asaga intuu ka hadlay arrintaasi sheegay inay wax ka qabanayaan dadka dhibaatadu ay gaadheen oo uga tacsiinayo haatan shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon maadaama aysan haysanin dawladdii u dhaaratay iyada la rabay inay difaacdo shacabka inaysan ilaa iyo xilligan ayna ka hadlin arrintaasi dhibaatadana wali ay ku socoto in shacabku hantidooda inta hubka gataan ay iska dhiciyaan canfartan duulaanka maalin walba ku soo qaadaysa ummadda Soomaaliyeed baabiisay inay iska dhiciyaan isla markaana wixii karaankooda hadday rabaan midyuun ka hadhin intii ay dhibaato ku noolaan lahayn maalin walba la layn lahaa ayagoo dhan oo sarax ku jiro ha dhamaadaan baan dhihlaani aad iyo aad daawadayaal waxaan taas kusoo koobaynaa wararkii u dambeeyay ee aan ku eegayno xaaladihii u dambeeyay dalka Ethiopia tan inta wararkan kiisa xiga aan halkan dib u kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.